wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka qodobada xiisaha leh aad ku daawo doontaan haddii eebweyne laga helana waxaa ka mid ah siyaasadaha Trump ayaa xumeynaysa xiriirka Mareykanka iyo Yurub iyadoo uu jiro khilaafka Ukraine. Wasiirka arrimaha dibadda Suuriya oo ka hadlay dib u soo kabashada dhaqaalaha iyo shirka Al-Ula ee Sacuudi Carabiya. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Rubio ayaa booqashadiisii koowaad ku tagay dalka Sacuudiga. qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaad ku daawo doontaan haddii eebweyne laga helo, balse faafahinta qodobadaasi intaan u gudagelin daawade haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato YouTube-keena Barkulan Media, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto, sidoo kalena aad gambaleelka furto, muuqaalkan aad like saarto, aad u share gareyso saaxiibada kugu weliya bartaada YouTube-ka. hagaag haddii aynu ku bilowno, siyaasadaha Trump ayaa xumeynaysa xiriirka Mareykanka iyo Yurub iyadoo ay jirto khilaafka Ukraine. hogaamiyaasha Yurub waxa ay muujinayaan qiladhaan isu soo taraysa oo ku saabsan habka maamulka Trump uu ku wajahayo xiriirka ka dhexeeya badweynta, iyagoo ka digaya in siyaasadaha isbedelaya ee Washington ay jebinayaan nidaamka marqeexaya iskaashiga Mareykanka iyo Yurub. 3 sano kadib markii uu Ruushku ku duulay dalka Ukraine, waxa uu keenay jawaab adag oo isku xidhan oo reer galbeedka ah. Siyaasad-dejiyaasha Yurub ayaa haatan ka cabsi qaba in siyaasadda arrimaha dibadda madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump ay u wiiqdo midnimadaasi. maamulka Mareykanka waxa uu dabada ka riixayaa in Ruushka lala heshiiyo iyadoo aanay reer Yurub waxba ka bixinin taladaasi. waxa ayna dalbanayaan wadamada reer Yurub in ciidamo dheeraad ah ay u diraan dalka Ukraine. waxa kale oo madaxda midigta fog ee la macaamileen siyaabo kala dhantaalaya xulufada dhaqanka. intii lagu guda jiray shirkii amniga ee Munchen, madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka DJ Vance iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka soo muuqatay kulankii ugu horeeyay ee Yurub, iyagoo diray calaamado xoogan oo muujinaya in Mareykanka laga yaabo in uu yareeyo joogitaankiisa militariga ee Yurub. xulufada NATO ayaa ka baxday shirka wasiirka difaaca, iyagoo ka walaacsan in xogayaha difaaca Mareykanka Pete uu ka fikirayo bixitaanka 10,000 oo ciidamada Mareykanka ah sanadaha soo socda sida ay sheegeen saraakiishu. dhanka kale, Trump ayaa 90 daqiiqo qadka taleefanka kula xiriiray madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin, isagoo aanay horay u tixgelin xulufada NATO ama Ukraine. waxa ay sii xoojinaysaa cabsida laga qabo in aqalka cad uu la wareego aragtida Moscow ee dagaalka. iyadoo ay jirto hubanti la'aan sii kordhaysa, hogaamiyaasha Yurub waxa ay u xusul duubayaan inay dib u qiimeeyaan istiraatiijiyadda amniga. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa lagu wadaa inuu isugu yeero dadka ugu muhiimsan Yurub Isniinta magaalada Paris si ay ugu wada hadlaan Ukraine iyo amniga guud, halka xulufada NATO ay ka wada hadlayaan tillaabooyinka xiga ay qaadayaan iyagoo la eegayo mowqifka Washington ee isbedelaya. waa hagaaga daawadayaal, weli waxaad daawanaysaan qodobadii ugu dambeeyay caalamka, balse haddii aynu eegno wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya oo ka hadlay dib u soo kabashada dhaqaalaha shirka Al-Ula ee Sacuudi Carabiya. wasiirka arrimaha dibadda Sacuudi Carabiya Asad Al-Shabani ayaa ka hadlay soo kabashada dhaqaalaha Suuriya, shir dhaqaale oo ka dhacay magaalada Al-Ula ee galbeedka Sacuudi Carabiya, sida ay sheegtay warbaahinta maxalliga ah. shirkani oo socon doono 2 maalmood, Al-Ula lagu talagalay dhaqaalaha soo koraya oo bilowday Axadii, ayaa waxaa si wada jir ah u soo qabanqaabiyey wasiirka maaliyadda Sacuudi Carabiya, hay-adaha lacagta adduunka IMF, waxaana ka soo qaybgalay wasiirada maaliyadda iyo gudoomiyaha bangiga dhexe, siyaasiyiin iyo khubaro dhinaca dhaqaalaha ah oo ka kala socday 48 wadan oo caalamka ah. sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee dowladda Suuriya ee Zana, Al-Shabani waxa uu ka wada hadlay qaadista cunaqabateynta in Suuriya ay awood u yeelato inay barwaaqo oo ay ka baxdo dhaqaale la'aan iyo qorshaha loo marayo aragtida dhaqaale ee dalkiisa. shirkani ayaa sidoo kale looga hadlay sidii dib loogu midoobi lahaa bankiga dhexe ee Suuriya oo ugu mid noqon lahayd nidaamka caalamka ah, iyadoo Suuriya uu matalayo bangiga adduunka iyo IMF ayaa la sii raaciyay. diblomaasiga ugu sareeya Suuriya ayaa kulan la qaadan doona wasiirka maaliyadda Sacuudiga Maxamed bin Cabdallah
oo dhinaca socda shirka Zana. waa hagaaga daawadayaal waxaan isla soo gaarnay guntii iyo gabagabadii qodobadii ugu dambeeyay caalamka, balse haddii aynu eegno xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio ayaa maanta Isniina gaaray magaalada Riyadh ee dalka Sacuudi Carabiya, halkaasi uu ku tagay booqasho rasmi ah. telefishinka Sacuudi Carabiya ayaa xaqiijiyay imaatinka diblomaasiga ugu sareeya isagoo aanan faahfaahin ka bixin jadwalka uu ku sugan yahay boqortooyada. booqashadani ayaa ah tii ugu horeysay ee Rubio uu ku tagayo markii uu noqday xogayaha arrimaha dibadda ee maamulka madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald J. Trump bishii hore. diblomaasiga ugu sareeya ayaa la filayaa inuu la kulmo madaxda ugu sareysa Sacuudiya oo ay ku jiraan dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman iyo wasiirka arrimaha dibadda Faisal bin Farah si uu ugula hadlo arrimaha gobolka, gaar ahaan heshiiskii xabajoojinta ee Gaza. Rubio ayaa boqortooyada kaga yimid isagoo ka yimid Israel, isagoo halkaasi kula kulmay madax sare uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Israel Benjamin Netanyahu. waa hagaaga daawadayaal, intaas ayaan kusoo koobaynaa qodobadii ugu muhiimsanaa caalamka, balse haddii aad nala soo gaartay dhammaadka qodobadan waxaan mar labaad kaa codsanayaa inaad YouTube-keena subscribe saarto, aad gambaleelka furto, sidoo kalena muuqaalkan aad like gareyso si saaxiibo badan u gaaro.